Shan faa'iido oo waaweyn oo uu leeyahay dhagayaraha. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa shanta faa'iido ee ugu muhiimsan ee uu leeyahay dhagayaraha, qofka isticmaali kara, qofka aan isticmaali karin, sida loo isticmaalo, iyo xaddiga ay tahay in laga qaato, iyo noocyada uu u jiro dhagayaraha. Dhagayaruhu waa mid ka mid ah waxyaalaha dabiiciga ah ee si joogto ah dadkeenu u isticmaalaan, guri kasta ahna laga heli karo. Dhagayaruhu waxa uu leeyahay astaamo u qaas ah oo ay ka mid yihiin inuu ka kooban yahay maaddooyin ay ka mid tahay maaddada loo yaqaano eugenol oo ah maaddo leh astaamaha antioxidant iyo anti-inflammatory. Antioxidant waxaa loola jeedaa walxaha ka hortaga in jirkeennu uu u kobco si ka baxsan xaddiga, isla mar ahaantaana uu noqdo kansar. Waxa ay ka hortagtaa maaddada eugenolka in unugyada jirkeena ay sameeyaan kobaca noocaas ah, isla mar ahaantaana ay noqdaan unugyo kansar ah oo ugu dambeysna dilo. Dhanka kaleeto waxa ay leedahay astaanta anti-inflammatory oo loola jeedo in ay ka hortagto isla mar ahaantaana ay yareyso caabuqa, khaasatanna cudurrada ku dhaco kala-goysyada ee ku badan dadka waaweyn balse cid kasta ku dhici kara ee loo yaqaano arthritis-ka. Haddii aan u gudubno faa'iidooyinka waaweyn ee uu dhagayaruhu inoo leeyahay, faa'iidada koowaad waa in uu taageero isla mar ahaantaana uu xoojiyo dheefshiidka. Dhagayaruhu waxa uu kor u qaadaa dheefshiidka, waxa uuna keenaa in la dedejiyo xaddiga iyo heerka ay cuntada jirkeena ku la falgalayso, isla mar ahaantaana ay ku nuugaydo si ay uga faa'iideysato. Faa'iidada labaad, dhagayaruhu waxa uu yareeyaa xanuunka ama waxa uu yahay wax keeno pain relief, khaasatanna marka ay timaado ilka xanuunka. Dadku waxa ay marka qaarkood dareemaan in goosuhu ay xanuunayaan. Haddii la adeegsado dhagayaraha waxa uu yareyn karaa xanuunkaasi. Faa'iidada saddexaad, waxa uu dhagayaruhu kor u qaadaa immune system-ka ama hanaanka difaaca. Dhagayaruhu waxa uu qayb lixaad la ka qaataa in difaaca jirka la kobciyo, taasi oo meesha ka saaraysa in qofku uu u nuglaado cudurrada infekshanka ah oo dadka ay la kulmaan. Faa'iidada afaraad, waxa uu dhagayaruhu kor u qaadaa isla mar ahaantaana xoojiyaa caafimaadka beerka. Beerka oo ah xubin ka mid ah xubnaha jirkeena ugu muhiimsan, lehna labada astaan ee ah in beerku yahay xubinka ugu weyn jirkeena markii maqaarka laga tago iyo in uu yahay qanjirka ugu weyn qanjirrada, isla mar ahaantaana uu hayo mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee dheefshiidka. Waxa uu u baahan yahay taageerada dhagayaraha. Dhagayaruhuna aad ayuu uga caawiyaa shaqadiisa. Shaqada shanaad waa in dhagayaruhu uu caawiyo caafimaadka lafaha, isla mar ahaantaana uu ka taageero inay noqdaan lafa caafimaad qaba oo xooggan. Dhagayaruhu waxa uu u jiraa dhowr qaab, sida qaabka dabiiciga ah ee loo helo, qaabka extractiga ah, qaabka saliidda ah, iyo qaabka supplementiga ah. Dhagayaruhu waxaa loo oggol yahay qof kasta inuu qaato qaadada yarta ah ee shaaha marka laba loo qaybiyo qaybteed amaba wax ka sii yar maalintii. Sidoo kaleeto, dhagayaruhu marka uu yahay saliid wuxuu u baahan yahay in qiyaastiisa ay noqotahay mid xadidan, maadaama uu yahay mid aad concentrated u ah oo xooggan. Cid kasta ahna ma qaadan karto. Haddaba yay tahay dadka aan la siin karin marka uu yahay supplement ama saliid uu yahay. Waxaana la siin karin dadka ay ka midka yihiin dadka qaba sokorta ee qaata daawooyinka sokorta, maadaama uu keeni karo in si degdeg ah sokortooda u dhacdo. Waxaan la siin karin hooyada uurka leh, midda nuujinayso. Sidoo kaleeto dadkaasina dhibaato ayaa uga imaan karta. Waxaa kaleeto oo dhagayaraha ay tahay in aan la siinin dadka beerka ka xanuunsanayo oo iyaguna uusan u fiicnayn. Waxaa kaleeto oo ay tahay in aan la siinin dadka qabaan cudurrada la xiriira dhiigga, maadaama uu keeno in dhiigga uu khafiif ka dhigo amaba uu keeno in qofka dhiiggiisa uu socodkiisa xoojiyo. Sidaa daraaddeed, dadka isticmaalaya daawooyinka dhiigga khafiifiya ama blood thinners-ka la dhaho amaba qaba cudurrada dhiiggooda uu noqonayo kuwo khafiifa ma isticmaali karaan.